maamulka isbitaalka shaqaalaha isbitaalka dhammaan marti sharafta ku soo dhawaada sanad guuradii lixnaad ee kooda Luulyo maalinta xurriyadda iyo midnimada Soomaaliyeed sizlere programı akıcımızı arz ederim. Kur'an-ı Kerim telafeti, Somali Türkiye Milli Maşrami okunuşları. Baş Doktor Asistan Doktor Abdurrezzak Bey'in açılış konuşması. Yönetici Yardımcımız Ahmet İbrahim Bey'in konuşması konu bağımsızlık tarihi. Yöneticimiz Doktor Sabri Bey'in konuşmaları bağımsız anlamı ve önemi. Doktor Celaluddin Şir Dillatisi. Martina Hastanesi'nden dönen kahraman kardeşlerimiz, çalışanlarımız hediye verilmesi. Ülkemiz kültür dansları ve toplu aile fotosu çekilmesi olarak sonu bulunacaktır programımıza. İntaan program ku dhaadhicin waxaa idinla wadaagaya qaybihiisa Qur'aanka Kariimka astaanta labada dal madaxa astaanka Abdurrezzaq hadalkiisa Dr. Ahmed Ibrahim Negeya hadalkiisa oo ah taariikhda xurriyadda Dr. Sabri Bey qiimaha xurriyadda Dr. Jalaluddin Gabay hidaha iyo dhaqanka dhaanto cunto iyo photoguri şimdi Kur'an-ı Kerim'i okumak üzere telafetine ولكن محمد شريف سي Kur'an noogu akhriyo ayaan ku soo dhaweynaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. صدق رسول الكريم. Teşekkür ederiz. Şimdi de sizlere Somali Türkiye Marşı ve İstiklal Marşı'nı okumasına davet ediyorum. Waxaa idinka codsanaya inaad u istaagtaan astaanta labada dal. manta waa maalin weyne maanta maanta madaxin banaane maanta bugun biyug bugun dur bugun babsi songu musgun dur bugun
olduğumuz gündür bugün. Şimdi de açılışı konuşmasını yapmak üzere Doktor Abdülrezzak Bey'in ve tercümanı Ömer Diblavi'yi sahneye davet ediyorum. Waxaan halkan kusoo dhaweynayaa madaxa istaanka Doktor Abdülrezzak iyo Ömer Diblavi. Bismillahirrahmanirrahim. Dhammaan marti sharafka ka soo qayb gashay habeen wanaagsan waa ku mahadsantihiin imaatanka sanad guuradii 60aad ee xornimada dalka Soomaaliya. Somali Bağımsızlık Günü'nün 60. yıl dönümü kutlama programına hepinize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. iyadoo aan ka hadlayno xilliga xornimadeena aan qaadanay haddana waxaa maanta noo sii labeeyo inaan halkan ku abaalmarin doono takhaatiirtii u heelanaa una adeegay dalkooda ayagoo noqday mujaahidiinta Soomaaliya. Kutlamanın yanı sıra bizim hastane çalışanlarımızın, sağlıkçı çalışanlarımızın COVID-19'un mücadelelerini, ortaya koydukları mücadeleyi aynı zamanda tebriklerini ve onlara ödül vermek için burada bulunuyoruz. xalfadeena waa noo furan tahay aad baa sintiin soo dhawaada. Teşekkür ederiz. Şimdi de konuşmalarına yapmak üzere yönetici yardımcımız Ahmet İbrahim Beynega'yı ve Ömer Diblavi'yi sahneye davet ediyor. habeen wanaagsan marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay 60 guuradii habeenkii xorriyadda aan qaadanay. Tüm değerli konuklara Somali Bağımsızlığı'nın 60. yıl dönümünü kutlama programına hoş geldiniz diyorum. Waxaan marka hore u hambalyaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shaqaalaha isbitaalka munaasabadda qaaliga ah ee 1 Luulyo. Waxaan jirsanay 60 sano oo xorriyad ah. Waxay leedahay farxad ku ciida, waxaan leeyahay farxad ku ciida isla markaana dib ha loo eego taxanaha taariikhda gobonimada Soomaaliya. Öncelikle Somali halkına bugünün 60. yıl dönümü olarak birinci turnusu kutluyorum. Aynı zamanda hastane çalışanlarımızı bugünü beraber kutlama şerefine yaşıyorum. Bildiğiniz gibi bağımsızlık çok önemli bir şey ve herkesin kutlaması gereken bir şeydir.
1960kii bishii luulyo kowdeeda waxay ahayd waa cusub ee u barye Soomaalida oo idil meel kasta ay joogto 1960'da 1. Temmuz Somali'ye yeni sabah doğdu. Sida aad dhammaantiin taariikhda aad ku wada akhrisateen 26 Juun oo habeenna hore loo dabaaldegay waxay ahayd xorriyadii xilliga ay qaateen deegaanada waqooyiga Soomaaliya ee hadda loo yaqaan Somaliland ay ka qaateen xorriyadaasna Ingiriiska 26 Haziran Somaliland bilinen Somali'nin kuzey tarafının bağımsızlığını ilan ettiği günüdür bildiğiniz gibi. Maalmo yar kadib koonfurta Soomaaliya ayaa iyadana iska kicisay gumeystihii Talyaaniga. Birkaç gün sonra 1. Temmuz'da Somali'nin İtalyan tarafı Somali tarafını bilinen bağımsızlığını ilan etmiştir. Wixii markaas ka dambeeyay waxay ahayd markii ugu horeysay ee la aasaasay Jamhuuriyadda Weyn ee Soomaaliya. Waa markii ugu horeysay ee la helaa dawlad ay maamulaan muwaadiniin Soomaali oo xor ah. Lana laabay calankii gumeystaha lana saaray calankii quruxda badnaa ee maanta aad halkaasi dhammaantiin ku wada aragtaan. 1. Temmuz'da Kuzey Somali ve Güney Somali'nin birleştiği ve bir bayrak, bir millet olduğu günüdür. Gördüğünüz gibi o bayrak, dalgalanan bayrağın Somali halkın o gün icat ettiği bayrağı ve diğer ülkelerin bayraklarını indirdiği günüdür. Maalintaas amba habeenkaas Abdullah Suldaan Timcadde Allah u naxariistay wuxuu ka tiriyay maanse aad u qurux badan wuxuu dhahay sareeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegne kan nasiib kan nasaar. Somali meşhur şairi dediği gibi bir göreyim bayrağı bu insin bu da dalgalansın dediği o günüdür. Calankan quruxda badan la micno dheer uu ku qotamaa haddii aan dhalinyarada aan dib aan u xusuusiyo calanku wuxuu ka kooban yahay xidig cad oo 5 gees leh 5taasna waxay ka kooban tahay 5 Soomaali oo wada taqaanaan oo ah koonfurta Soomaaliya oo halkan caawa aan joogno ay tahay waqooyiga Soomaaliya qayb ka mid ah dhulka Itoobiya iyo qayb ka mid ah Kenya iyo Djibouti xidigta 5taas ayay tilmaamaysaa waxa kale ka muuqdo meesha midabka buluuga oo qafiifka ah waxayna tilmaamaysaa cirka iyo badda dhulka Soomaaliya oo mar walba midabkooda uu yahay buluug. Bizim Somali bayrağının anlamını size anlatmak istiyorum. Bayrağın rengi hafif şey olması, mavi olması Somali'nin deniz ve Somali'nin havasını, semasını gösteren bir simgedir. 5 taraflı yıldızı Somali'nin 5 bölge simge eden Somaliland, İtopya'nın bir kısmı, Kenya'nın bir kısmı ve Djibouti'yi simgeleyen bir yıldızdır. guusha ay xorriyaddan ka gaartay Soomaaliya waxay soo martay maraaxil kala duwan marxaladahaasna waxaa ugu cadcadaay 13 dhalinyaro ee dhisay ururkii SYL waxay mar walba aysan taariikhdu iloobi doonin halgamayaashii uu ka mid ahaa Allah u naxariistay Axmed Gurey. Bugün için uğruna veren gençlerini hatırlamak için buradayız. O gençleri SYL diye bilinen gençlerin bu mücadeleyi bugün için canlarını feda ettiler. xilligaas ka dambe waxaa la dhisay sida wada ogtiin dawlad uu madaxweyne ka yahay Allah u naxariistay Aadan Cabdulle Cusmaan ra'iisul wasaarana uu ka noqday Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaake waa nidaamkaas dawladeed oo aan hadda aan isticmaalno amba aan harsanno oo waxayna keenay waxayna ku imaaday xorriyadda kadib. Somali'nin o günün Somali'nin ilk cumhuriyetini kuruldu. İlk Cumhurbaşkanı Abdullah Osman Aadan Ada olarak ve Başbakanı Cabdirashiid Cali Sharmaake olarak ilk günü kuruldu.
ma raba inaan taariikhda idinku dheereeyo xorriyadda aan maanta ku naalaynayno waxaa dhiiggoodu u daatay rag iyo dumar badan oo Soomaaliyeed waxaan leenahay waa shuhado Ilaahay ha u naxariisto jannatu firdawsa Allah ka waraabiyo Soomaali meel walba ay joogto kuwa isku duuban Allah ka dhigo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ومجادلة يقولون بران شيء ترى الله رحمته إلى سنديورم الله جنة فردوسه كل سنديورم كلمة إنسان كان تغنو نصرصلين الناس يمكن صاحبه هاي مالنتي لسك سما ودن كنو وسيغلي يسيدا دايس ضروري وسيكا غلابي أنيغو صغير أبو ساتر كيسانا ديغا يلي سغل كاقيتيو أدراوان سدر ودقنايو مصر بيغ مرتيدا ومسنتيرياي صدقوي سفالها وداني بانكو سوغايايو سويالك تاريخ دبان صدر كشكينو الجنكي سيلع ساجيعي أحمد سودين تولي غيبا إنو سفت عيرين كوباداي والله صوتانو سركانا وكجاري فاسدا كانشانان كيسوناي Somalia danku sawiro saka waxa jooga nimanka sangiga modaya sararta waaweyne samaa loo keenayo sintiga islaamka siriqiyo laqdaba qowlayaan insalaxayay sungalbeed ku sidkano samaa ku geerarta sinjigoodu saxan yaho nalana islaama إن ساعدا ينسين سني وبايو وسجنت إمارات سكيل سوشا سحادنا الكامر على صصارو وسياسة مشاريع لدون أبو سبيايو كلا سوء تنقب الله إنساك كلا جيو كلا سوء تنقب الله إنساك كلا جيو سراكيش حمر ويفهم سواه وضعه سفر هذا الرخصة الله جرى ساعد قدهدو كوبالو ساعدان وجوغو اسكا جيرا سوماليو إمارا ساكا ووسيس تاريخ دوا سلسلة نفلها سودين وبطالا سوكيا ننكا مدبا سريق دا كواسي سبان سجانتا دلنيو كوفيكي سررتا وينابا ساقيدين تاني هنكي تيرسادا ساكنا لجوغا منطق ركبا سودعشو انتكاغا سومي سجني هذا ركبا وقالو سررتنا فودي سوكيو إسلايو غيدي وسلدانا ويدي سومالايكا كاعاقوبتا وسلعويا تشكر دي ورسالة أدوما هسنتين شمد دي كونش مالنا ياب مع كوزارة دكتور صبري بين كونش مالنا قصية دعوة ديوروس وحنا تقصد بنا معمول في اسبتال دكتور صبري Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Nage'ye kadar uzun konuşmayacağım. Mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. qof walba waxaan leeyahay habeen wanaagsan sida agaasimnagay hadalka muu dheeran doono aniga waa soo gaarin doona Somali'nin bağımsızlığının 60. yılı münasebetiyle yapılmakta olan bu törene hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi ülkem adına saygıyla, mutlulukla selamlıyorum. dhammaantiin waxaan idinku soo dhawaynayaa anigoo ku hadlaaya magacayga iyo magaca dalkayga dhammaantiin waxaan idinku soo dhawaynayaa lixdan guurada maalinta kuwii Luulyo ee xorriyadda Soomaaliyeed. Bildiğiniz gibi bağımsızlık uğrunda çok kan döken, yüzlerce, binlerce, on binlerce şehit veren bir milletiz biz. Bağımsızlığın değerini çok iyi anladığımızı düşünerek
buradaki sevincinizi, mutluluğunuzu, kıvancınızı da takdir ediyoruz. waxaan aad iyo aad u fahmayaa haddaan nahay dadka Turkiga waxaan aad iyo aad u fahmaynaa macnaha ay leedahay in loo dagaalamo xurriyadda in naf loo huro sidaa darteed waxaan aad iyo aad u soo dhawaynayaa dabaaldeggiina weyn ee halkan ka socda. Yakın geçmişte Somali'nin yaşadığı sıkıntılı ve acılı süreçten sonra tekrar yeni bir organizasyonla yeni güzel, mutlu günler için çalışmakta olduğunu görüyoruz. Biz de Türk devleti olarak buna destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Soomaaliya oo mar walba ku dhacday oo weysay wadadii saxsaneed hadda ay waxay ku soo qaaday wadadii saxsaneed annaga haddaan nahay dalka Turkiga waxaan diyaarnahay inaan Soomaaliya garab istaagno oo aan la soconno oo ay himpiladooda gaaraan. Özel olarak sağlık alanında Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi olarak sağlıkta daha ileri gitmek için, insan kaynağının gelişmesi için elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi de bilmenizi istiyoruz. Waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego oo aad ogaataan isbitaalka Recep Tayyip Erdoğan wuxuu diyaar u yahay in capacity building uu sameeyo oo uu soo saaro shaqaalo ku filan oo wax ka qabta caafimaadka dalka Soomaaliya. Son olarak Afrika'nın bu güzel ülkesine Türk milleti, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız adına en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Dalkan qaaliga ah waxaan anigoo ku hadlaaya magaca madaxweynaheena Recep Tayyip Erdoğan waxaan idinku salaamayaa salaam kaliya laaba. Şimdi de Dr. Celaluddin Bey'in şiirini seslendirmek üzere sahneye davet ediyoruz. Hatta waxaa wacynaa Dr. Celaluddin si uu gabayga inoogu qaado. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habeen wanaagsan waa liigu kadiyey inaan xoogaa yar fariisto oo waxay ahayd sida munaasabadda u socdo arko. Waa idin wada salaamaya agaasimaha isbitaalka Recep Tayyip Erdoğan, agaasima ku-xigeenada, howlwadeennada, shaqaalaha, dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha kulli waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan runtii jeclaystay inaan idinkala qayb galo farxadda munaasabadda kowda luulyo oo 60 guuradii aan runtii caawa isbitaalka u dabaaldegayo dhaqanna u ahayd. Waa runtii wax weyn oo farxad leh, waana mahadsantihiin inaad xusaysaan munaasabadaha qaaliga ugu ah dalkan oo xorriyaddii Soomaaliya iyo midowgii labada koonfur iyo waqooyi ee Soomaaliya. Somali'nin bağımsızlığı ve beraberlik gününün kutlama programımıza tekrar hoş geldiniz diyorum ve sizinle katılmaktan mutlu duyuyorum. Waxaan xafladan ku matalayaa wasaaradda caafimaadka, gaar ahaan wasiir Fawziya oo aad u jeclayd inay halkaan idinkala soo qayb gasho, laakiin munaasabado badan oo jira awgeed salaan diiran iyo hambalyo iyo kiin soo fartay. Waxaan rajaynayaa inaad ka gudoomi doontaan. Sağlık Bakanı, Somali Sağlık Bakanı adına sizinle beraberim. Onun için ondan selam getirdim. Maanta oo kale waxaa laga sheekeeyaa taariikh dadka waxay u kala baxaan aan kaftame maan ku ciroole iyo mijo ku ciroole iyo madax ku ciroole. Marka waxaan ka mid ahay dadka waxoogaa cirada leh ee taariikhaha aad maxaa la dhahay ula socdo. 60 sano ka hor Soomaaliya waxay qaadatay xornimo gumaysiga ah oo halgan adag loo soo galay. halgankaas waxaa u galay oo la xusaa in la sheego u baahan dhalinyaro Soomaaliyeed. dhalinyaradaas oo soo hooyay calanka buluuga ee maanta la wada labisan yahay oo dhiig u daatay, dad waalidkoodii ehelkood u waayeen, in la xuso oo loo duceeyey maanta oo kale mudan yihiin. Bildiğiniz gibi bugünü canını veren ve bugün bu bayrağı burada dalgalanması için canlarını veren
o gençler sayesinde bugünü yaşıyoruz. dhalinyaradaas waxaa ka la mid ah oo maanta taariikhda galay Soomaaliyana taariikh weyn ku leh dhalinyaradii ka qayb qaadatay welina u taagan halgankii la dagaalanka cudurka dilaacay ee COVID-19 coronavirus oo isbitaalkan iyo tiimka joogaba ay istaahilaan inta loo dhiso 60 sano la xuso mar walbana la xuso waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago waa mahadsantihiin waxaad Soomaaliya ula mid tihiin dadkii calanka keenay oo kale abaalkiina wax lagu gudi karo ma laha runtii Bugün bu tarihte 60 yıl sonra bizim sağlık çalışanlarımızın, gençlerimizin 60 yıl önce aynı gençleri, aynı fikri o gençlerle aynı tutuyorum ben. Onları canlarını veda ettiler ve Covid-19 mücadelesinde ön cephede bulundular. oo mahadsantiin maanta caawa waxaa liiga sugayay gabay soo ma haddaa hees u bedela ka warraba Benden şimdi bekliyordunuz ama şarkı söyleyeceğim. waxaa runtii asxaabta qaarkoodna aan garanayn hees la yiraahdo Soomaali baa leh marka waa liiga cod fiican yahay ma isla qaadi karnaa Birlikte Somalilere ait diye bir şarkısını söyleyeceğim. Somalia vale Somali vale ninki kala sarloho ninki kala so'wado ninki suhun ifakiro aday taladii ku segto sidaad moodaysa maahe warhoy Somali vale
ku dhacay COVID-19 waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin magacyadooda oo kale ah Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi iyo Firdowso Maxamed Xasan hepinize teşekkür ediyorum hepinizden Allah razı olsun dhammaantiin waa ii mahadcelinayaa ilaahayna ka raali noqdo waa mahadsantihiin asxaabta waa mahadsantihiin dhammaan tiimkii ka qayb qaatay COVID-19 qurux badan ay sameeyeen sababta loo magac dabay Cabdullaahi iyo Firdowsa waxaa rabaa inaan sheego tiimka markii ay aadayeen Martiina Cabdullaahi wuxuu ahaa iyadoo laga cabsanayo ICU-da in la galo ninkii galay tiimka kalena ay ku daydeen özellikle yönetici beyin zikrettiği gibi o iki kişi özellikle doktor beyin millet şeye girmek istemeden, yoğun bakıma girmek istemediği şekilde istemezken o kendisi girdi ve onun yapabileceği bir şey gösterdi. waxaa Firdowso waxaa xasuustaa maalinka tiimka loo wacayay dadka qaarkood COVID-19 maa tegayna annagoo nagu dhacaa ay dhahayeen Firdowso waxay tiri waxaan diyaar u ahay qof kasta hadduu diido inaan aniga keligay aan shaqeeyo inta bukaama Firdowso konusunda herkes hayır dediği günde evet varım dedi. Waa mahadsantihiin guulaysta dhammaantiin hepinize teşekkür ediyorum. Hoy laga
laga